war degdeg ah baarlamaanka dowlad goboleedka waqooyi bari soomaaliya ayaa markii ugu horreysay waxa uu qaaday tallaabo culus oo ka dhana maxaabiistii somalilan looga qabtay dagaaladii ka dhacay gobolka sool iyo magaalada laascaanood kuwaas oo in muddo ah ku xirnaa xabsiyada ku yaalla magaalada laascaanood ee xarunta maamulka waqooyi bari soomaaliya haddaba maxay tahay tallaabada uu qaaday baarlamaanka waqooyi bari soomaaliya oo maanta yeeshay kalfadhi aan caadi ahayn faahfaahinta ayaan kugula wadaagi doonaa soo dhowow daawade muuqaalka laygsaar aragtidaada qaybta faallada ee kommentiga ku dhiib haddii aad horey noola joogtay waad ku mahadsantaha haddii aad nala jooginna nagu soo biiro ka mid noqo saaxiibada halkan ku xidhan tallaabada baarlamaanka waqooyi bari maanta uu qaaday ma tahay mid sax ah oo wakhtigii loo baahnaa ku soo aaday hagaag baarlamaanka waqooyi bari soomaaliya oo maanta yeeshay kalfadhi aan caadi ahayn oo ka dhacay xarunta baarlamaanka waqooyi bari ee magaalada laascaanood ee caasimadda maamulkaasi ayaa waxaa soo xaadiray inta badan dhammaan xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka waqooyi bari soomaaliya waxaana shir guddoominayay guddoonka koowaad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka waqooyi bari baarlamaanka ayaa ajandaha maanta laga doodayay waxa uu ah xilka qaadista 5 xildhibaan oo hore u sheegtay inay iyagu ka baxeen safka xildhibaanada baarlamaanka waqooyi bari oo iscasileen laakiin baarlamaanka ayaa si rasmi ah maanta xasaanadii uga xayuubiyey islamarkaana ku tilmaamay dembiilayaal qaran kadib baarlamaanka waxa uu dood dheer ka yeeshay waxa laga yeelay sharci cusub oo loo soo gudbiyey oo sheegaya in la maxkamadeeyo maxaabiistii maamulka somalilan looga qabtay dagaaladii ka dhacay gobolka sool guddoonka baarlamaanka ayaa ajandaha la wadaagay xildhibaanada waxaana uu sheegay ajandaha maanta uu yahay ka doodista iyo sidoo kale u codaynta in la maxkamadeeyo maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii ka dhacay gobolka sool oo qaarkood u haysto dembiye waaweyn oo ka dhana bini'aadanimada baarlamaanka oo dood dheer ka yeeshay kadib waxa ay xildhibaanadu cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen in dhammaan maxaabiista sida ay u dhan yihiinba kuwii laga qabtay maamulka somalilan ee askarta ahaa la soo taago maxkamad militari oo maamulka waqooyi bari soomaaliya si deg dega uu dhiso waxay sheegeen dhammaantood inay yihiin dembiilayaal loo haysto xasuuqay u geysteen dadka shacabka ah ee maamulka waqooyi bari soomaaliya ku nool waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in si deg deg ah cadaaladda loo mariyo lana waafajiyo markaasi xukunka ay mudan yihiin qaar ka mid a xildhibaanadu waxay sheegeen inay ku jiraan maxaabiista kuwa galay dembiye waaweyn iyagoo si gaara farta uga fiiqay faysal cabdi bootaan oo ahaa sargaalkii ugu sarreeyey ee lagu qabtay dagaalkii ka dhacay gobolka sool tallaabadan waxay muujinaysaa in maamulka waqooyi bari soomaaliya muddo dheero uu naawilay in wadahadallo lagu sii daayo maxaabiistan ayna ku beddeshaan tiro kooban oo maxaabiis oo magaalada hargeysa kaga xiran in maanta ay go'aansadeen ugu dambayn in maxkamad la soo taago sida muuqatana qaar ka mid ah maxaabiistan ayaa mutaysan doona in lagu xukumo adag oo ay ka mid yihiin dil toogash xabsi daa'in iyo qaarkood oo lagu xukumo xabsiyo wakhti dhaadheer ah haddaba tallaabada maamulka waqooyi bari baarlamaankiisa uu qaaday waxay hor taallaa madaxweynaha waqooyi bari cabdiqaadir axmed aw cali firdhiyo iyo sidoo kale golihiisa wasiirada in iyagana markaasi ay meelmariyaan ma ku saxan yihiin tallaabadan ay qaadeen baarlamaanka waqooyi bari iyo maamulkaasi guud ahaanba ee lagu go'aamiyey in la maxkamadeeyo maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii ka dhacay gobolka sool ee dhinaca somalilan markaasi ka soo jeeday askarta oo badnaa aragtidaada qaybta faallada ee kommentiga ku dhiib